okay. I'm just trying to... I know you are. Just to calm down. I know you are. Sir, step down that white line and go to jail right now. Alright? Please. Please, man. I know. Please. Start you up. When the police found 4 young people butchered inside their home, they were at a loss. markii ay They lived in boolisku a squeaky clean heleen town and had bright 4 academic dhalinyaro futures ah ahead. oo si arxan darro ah Only loogu 3 dilay years later, an gudaha unexpected hoygooda person would waxay ku crack noolaayeen the magaalo case. yar oo ku taalla This gobolka is Texas ee dalka Christine Mareykanka Paul Lila, a waxay dorky lahaayeen girl turned hami weyn beauty oo queen noloshooda iyo turned mustaqbalkooda mass wanaagsan ah kaliya Wait, 3 what? sano kadib Yeah, ayaa la that's helay right. This waxaana la case is filayn ama la completely helay waxaan la filayn outrageous. oo ah It qof has ay lama plot filaan twists, noqotay inuu ka tragedy, dambeeyo jealousy. falkaasi tani waa Christina Puliela gabadhii tima la'aanta ahayd ee noqotay boqoradda quruxda isuna bedeshay dilaaga weyn sug bal maxaan idhi waa runteeda dilaaga weyn isu bedeshay sheekadan waxay noqotay mid dadka maskaxdooda qaadi weyday murugo xanuun masayr iyo waxyaabo badan ayaa isbiirsaday dhacdadan waxay ka dhacday halka la yiraahdo Clear Lake Houston ee Texas deegaanka waa halka sidoo kale ay ku taalo xarunta saynis yahanada caalamiga ee NASA waana deegaan ay ku nool yihiin dhalinyaro intooda badan hamigoodu yahay cilmiga sayniska kuwa oo hamigeedu yahay sidoo kale inay wax ku soo kordhiyaan dunida dhanka aqoonta gaar ahaan hay'adda NASA waa NASA Clear Lake waa school ay wax ka bartaan ilaa 2,000 arday oo mustaqbal ifaya leh taasoo ay barbar socoto dhalinyaro kale oo noloshoodu ay qiyaali ku dhisnayd oo iyagu aanan diyaar u ahayn inay mustaqbalkooda sida saxda ah u wajahaan abaara 2000 ayaa ahayd markii Rachel iyo Tiffany oo ahaa saaxiibo aad isugu dhow isla markaana kuwa aad isugu faraxsan ardayda kalena ay u arkayeen inayna jirin saaxiibo la mid ah saaxiibtinimada iyaga ka dhaxaysa Tiffany waxay ku haminaysay aktarada inay noqoto ama social worker marka ay iskuulka dhamayso Rachel waxay markaa ku rabtay oo ay hamigeedu ahaa qoraa sare inay noqoto iyo hal abuure balse markii ay qalin jabisay waxay ku biirtay ciidamada cirka iyadoo ku fikiraysa inay nolosheeda sii horumariso balse intii ay islahayd isbedel weyn ku sameey noloshaada ayaa isbedel yari ka soo hormaray oo nolosheeda soo wajahay kadib markii gabar xishood badan oo ka timid dhanka New York ay ku soo biirtay iskuulka Clear Lake Houston Texas waa Christina Puliela Christina waxay ku dhalatay jasiirad sanadkii 1986 Lori iyo Charles waa aabbaha iyo hooyada Christina waxay markaa isaga noolaayeen nolol iska caadi ah iyada walaalkeed iyo waalidiinteeda balse waxay wax waliba isbedeleen kadib markii Christina aabaheed uu ku geeriyooday goob uu ka shaqeynayo ahayd dhismaha xilliga Christina da'deedu waxay ahayd 2 sano jir Charles waxa uu lahaa waa aabbaha Christina lacaga badan oo qolyaha insurance-ga ay siinayeen taasoo markaa familka loogu talagalay in la siiyo haddii Charles uu geeriyoodo balse Christina ma gaarin xilligii lagu wareejin lahaa lacagtaasi ilaa ay 18 jir ka noqotaana ma helayso hooyadeed oo iyana xilliga wax shaqo aan hayn balse waxa ay isu bedeli doontaa dadka draagiska isticmaala caruurtiina waxay la noolaayeen markii dambe ama ay la noolaan doonaan qaar ka mid ah familka gaar ahaan ayeeyadood iyo awowgood balse nolosha adag ee Christina ma aha mid bilow ah markii ay 5 sano jirtay waxaa haleelay xanuun sababay in tinta madaxa iyo sunyaha indhuhuba ay ka daataan taasoo horseed u noqotay niyadjabka nolosheeda ay ka qaaday xilliga ay iskuulka hoose ku jirtay waxay ahayd mid wax tina aanan ku lahayn madaxa iyo sunyaha intaba waxayna bilowday
inay xiirato ama inay xirato wengiska ama tinta burukada la yidhaahdo ee dumarku isticmaalaan. taasina waxay noqotay mid ardaydii iskuulku ay ku maadeystaan oo ay ku caayaan. qaar ka mid ah ardaydii durbaba waxay bilaabeen inay ka qaadaan tinta madaxa u saaran ee feega ama tinta burukada loo yaqaano oo ay ka tuuraan, taasi oo ku noqotay mushkilad nolosheeda sii gelisay mugdi iyo murugo kale. markii ay u wareegtay dugsiga sare sidoo kale waxa ay markaa keliya niyadda ku haysay in iskuulkaasna ay kala kulmi doonto wixii ay kala kulantay dugsigeedii hoose. Christina markii ugu horreysay nolosheeda waxay heshay xasilooni iyo deganaan, waxayna heshay saaxiibo wanaagsan oo ka saaray noloshii adkayd lana qaybsaday xaaladii adkayd ee ay markaasi ku jirtay. waa Stefani iyo Rachel. Christina waxay timi maalin gurigeeda iyadoo aada u faraxsan isla markaana laga dareemayo isbeddel weyn oo ku yimi nolosheeda. waxayna durbadiiba hooyadeed u sheegtay jawiga cusub ee ay gashay, iyadoo tiri, hooyo, waxaan helay saaxiibo qiimo badan oo iga duwan kuwii hore, isla markaana i dareensiiyey in keligay aanan ahayn oo ay garbahayga taagan yihiin. farxad badan ayaan ka helay iyo daryeel. waa Tiffany iyo Rachel. Rachel iyo Tiffany waxay bilaabeen in Christina ay bulshada ku soo daraan oo ay ka dhigaan qof aan waxba ka duwanayn gabdhaha kale iskuulka isla dhigtaan. isla markaana waxay ka caawiyeen inay u sameeyaan make-up waxa dumarka isku qurxiyaan. bil gudaheed Christina waxay noqotay gabadha ugu quruxda badan iskuulka, waxaana codad laga qaaday ardaydii ay 2003 ku noqotay boqorada quruxda iskuulka. taasina waxay sare u sii qaaday hamigii dhacsanaa ee nolosha ee Christina. sidaana waxay Christina ku noqotay gabar caan ka ah deegaanka iyo iskuulada kaleba. balse wax waliba sidoodii ma sii ahaan doonaan hadda kadib. May 2003 Rachel iyo Tiffany way ka qalin jibiyeen iskuulkii dugsiga sare, waxayna sanad ka sii horeeyeen iyagu Christina. waxaana soo koobmay xiriirkoodii iyo saaxiibtinimadoodii hore oo isu bedeshay gaabis. taasina waxaa sabab u ahaa saaxiibka Christina. dhammaadkii 2000 Christina waxay saaxiib la noqotay ama samaysatay group kale kuwaasoo ahaa arday nolosha ka dhacsan oo drag iyo dhaqamo kale oo aan wanaagsanayn u horseeday nolosheeda, taasoo kasii fogeynaysay saaxiibadeedii caadiga ahaa ee Tiffany iyo Rachel. waana halka ay iska heleen Christina saaxiibkeed Chris Snyder. Mr. Snyder waxa uu ahaa 16 sano jir, balse Christina waa 14 jir. waxayna u aragtay sida aabaheed oo kale inuu yahay, isagoo u sameynayay wax walba oo ay u baahato, balse danta uu ka lahaa way ka weyn tahay inta. bilooyin kadib xiriirkoodii, Chris waxa uu markaasi bilaabay inuu kontaroolo isla markaana uu dhibaatooyin iyo tacadiyo kula dhaqmo, kuna amro inay jarto oo ay ka fogaato dhammaan saaxiibadeedii oo ay ku jiraan Tiffany iyo Rachel, isagoo ay u sii dheerayd inuu ahaa tuugada dadka dhaca u geysta, taasoo uu xitaa xabsi ku mutaystay. familka Christina ayaa markaasi ka dhaadhiciyay gabadhooda inay ka harto ninka xun oo ay mustaqbalkeeda ka fikirto, isaguna uusan u roonayn. balse Christina dhag jalaq uma aanaysiin oo waa ay si iska indha tirtay familkeeda. markii la soo daayay Chris oo xabsiguu ka soo baxay, waxay halkeedii ka sii waday xiriirkii kala dhexeeyay Mr. Snyder. maalin maalmaha ka mid ah Chris ayaa iridda hore ee iskuulka ku sugayay Christina. markii ay soo baxday oo ay markaa u timi xaggiisa, waxa uu durbabo bilaabay inuu si xun ula dhaqmo oo uu ka qaaday tintii madaxa u saarnayd ee burukada ahayd ama feega, weliba ardayda hortooda, taasoo qarow ama nightmare ku noqotay Christina. qof walbaana wuu ka soo horjeeday xiriirkooda, xitaa ay ku jiraan saaxiibadeedii Tiffany iyo Rachel, balse way ka diiday intaa. kadibna waxay bilaabeen iyaguna inay u jaraan xiriirka, maadaama ninka xun ay ka dooratay
isla markaana ka diiday inay ka harto. Tiffany iyo Rachel markii ay ka qalin jibiyeen iskuulka, saaxiibtinimadoodii way sii ballaaratay, waxayna u guureen guri ay iyagu wada degaan labadooda. Tiffany waxay markaa iyadu lahayd nin saaxiibo ay ahaayeen oo la yidhaahdo Marcos mar waliba waxaa isaguna la socon jiray in adeerkii Alberto Sanchez, waxayna waqtigooda ugu badan ku qaadan jireen guriga Tiffany iyo Rachel. Afartoodu waxay noqdeen kuwa isfahamsan isla markaana mar waliba wada kulma. Christina qodheeda waxay bilowday in ay nolosheeda wax ka bedesho oo waxay shaqo ka bilowday goob qurxinta dumarka lagu markaa sameeyo oo la yidhaahdo Walgreen. July 18 sanadkii 2003 laba ruux oo ka mid ah dariska Tiffany iyo Rachel ayaa albaabka soo garaacay, iyagoo booqasho surprise doonaya inay Tiffany iyo Rachel ugu yimaadaan, balse cidna kama jawaabin garaaca albaabka. Nasiib wanaag, albaabku wuu furnaa. Gudaha ayay damceen inay hore u galaan, mise meel walba oo guriga ka mid ah waxaa daadsan dhiig fara badan. Durbadiiba waa iyagoo argagaxsan waxay markaa garaaceen booliska ama nambarka emergency-ga ee 911-ka, iyagoo ku wargeliyey waxay la kulmeen iyo in guriga ay u soo galeen 4 ruux oo la dilay. Rachel, Tiffany, Marcos iyo Sanchez waa la dilay, waliba si arxan darro ah ayaa loo dilay. Meel walba waxaa ka muuqda rasaas iyo qolfaha rasaasta. Alberta waa midka ugu da'da weyn 4 ruux ee la dilay, waana 22 jir, halka 3 kale ay ahaayeen 18 sano jiro, kuwa oo dhammaantood dhawaan ka qalin jibiyey dugsiga sare, isuna diyaarinaya mustaqbalkooda oo u muuqday mid walba sida ay ka muuqatayna dhowr xabadood lagu dhuftay. Laakiin Rachel way ka duwanayd dilka dadka loo geystay, sababtoo ah iyada si naxariis darra ayaa loo dilay, waxaana rasaasta lagu dhuftay ilaa madaxeeda uu burburay oo aan la garan karin wejigeeda. wax calaamada kama muuqan guriga oo ah in albaabka la soo jabiyey ama xoog lagu soo galay. wax walibana waxay u muuqdeen in qolada dilka geysatay ay ahaayeen dad si caadi ah u soo galay guriga oo waliba waqti la qaatay 4 dhibane, kadibna xaaladdu ay sidaa isu bedeshay. TV-gu wali waa uu daaran yahay, waliba film comedy oo cartoon ah ayaa socda oo ay markaa daawanayeen. murugada kale waxay tahay in Rachel ay wali gacanta ku haysato ama ku haysay mobilkeeda, iyadoo waliba isku dayaysa inay wacdo nambarka emergency-ga 911-ka, balse markii ay garaacday 91 oo 1-ka kale u dhinnaa ayaa nasiib darro la dhamaystiray oo la dilay. waxaana ay markaa in yar u jirtay inay nambarka emergency-ga 911-ka garaacdo, laakiin umay saamixin, umana sahlin qoladii wax dilaysay inay lambarka toos u garaacdo. rasaastii laga helay guriga waxay markaa ka kala dhaceen 2 qori oo kala duwan, waana midda qolyaha baarista ee booliska ay ku ogaadeen in 2 ruux falka ay geysteen. warkii durba waxa uu qabsaday warbaahintii oo si weyn ay uga wada hadlayeen dhacdadaasi. waliba markii warbaahintu ay soo qaadatay sawirka guriga dhacdada ka dhacday, waxaa arkay aabbaha dhalay Rachel oo dhibanayaashii la dilay ka mid ah, oo garanayay guriga gabadhiisa adreeskeeda inuu yahay halka falku ka dhacay. isla markii waxa uu si toosa u soo aaday halkii, isagoo ugu yimi guriga oo dhan walba booliisku ka joogo. waxaa loo diiday inuu gudaha galo maadaama gabadhiisu ay ku jirto dadka la dilay, balse booliiskii ayaa ka diiday. qof walba la yaab ayay ku noqotay sida ay wax u dhaceen. sidee ku dhici kartaa baa la yidhi 4 ruux oo ahaa dad aada u wanaagsan, isla markaana lagu yaqaanay kuwo mar waliba faraxsan una roon dadka iyagu la jooga, ay ku yeelan karaan cadow dhibaataya ama dilkan foosha xun u geysta. booliska oo bilaabay inay su-aalo weydiiyaan ardaydii iskuulka Clear Lake ayay markaa u sheegeen in Rachel iyo Tiffany
gurigoodu uu markaa ahaa mid xilliga samarka marka la gaaro ay u tegi jireen inay xafladaha iyo munaasabadaha ku qabsadaan. hase yeeshee mid ka mid dadkii dariska lahaa ayaa sheegay inuu arkay 2 qofood oo horey aanay xaafadda ugu arki jirin, oo ay adag tahay in si sahla lagu garto maadaama waxay xirnaayeen gabi ahaanba madow uu ahaa ama dhar madow ay xirnaayeen. waxayna boolisku ka codsadeen qofkii inuu sawiri karo 2 qofood wejigooda oo loogu yeeray qolyaha artiska ee booliska la shaqeeya, iyadoo sawiradii lagu daadiyey dhammaanba waddanka si ciddii aragtaa ay u soo sheegaan, weliba abaalmarin qaaliya loo siin doono ciddii soo aragta ama meel ku sheegta. balse ma jirin qof soo sheegay ama arkay intaba, taasi oo ka dhigtay inaan la sii buunbuunin dhacdadaasi. Marcos Tivani saaxiibkeed horey waxa uu ahaa qolyaha daroogada ka ganacsada, wuxuuna xiriir la lahaa qolo gang Mexicana, balse familkiisu waxay sheegeen in waxaasoo dhan uu isaga haray oo uu noqday shakhsi noloshiisa iyo mustaqbalkiisa ka fikira wax cadowana uusan lahayn. boolisku maadaama weli ay baaritaanka wadaan, haddana waxaad moodaa in gaabis uu ku yimid, iyagoo weliba sheegay in cid walba oo falkan geysatay ay ahaayeen kuwa saaxiib la ahaa iyaga oo u dhow, maadaama baaritaanka ay sameynayeen ay ku ogaadeen inaanu jirin sida guriga ay ku soo galeen falka cidda geysatay aanu ahayn mid xooga oo ay si sahla ku soo galeen. qof walba oo dadkii deegaanka ahaa waa uu caraysan yahay, sababtoo ah ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay falka. haddaba yaa ku xigi doona 4 saaxiib ee la dilay? waa mid waliba oo dadka deegaanka ka mid ah waxa uu isweydiinayay. weliba deegaanka Clear Lake waxa uu ka mid ahaa deegaanada aadka u nabdoon oo wax dhibaataa kama aanay dhici jirin marka loo eego ama la barbar dhigo waddanka intiisa kale. balse hadda dadkii way baqayaan, caruurtoodii uma ogola inay bannaanka u baxaan oo ay guryahooda ka tagaan oo ay bannaanka ku soo caweeyaan. qoftii Christina ahayd xitaa arrintaas saameyn ayay ku yeelatay oo guriga kama bixin, mar walba way ooyeysaa, iyadoo weliba weysay 2 saaxiib oo qaali ku ah. mana jirin cid ka shakisay arrinta ama istiri way ka dambeyn kartaa dilka saaxiibadeed. kadib markii ay qalin jabisay Christina, weli waxay xiriir la leedahay Mr. Snyder, weliba waxay si xad dhaaf ah ula isticmaashaa drug iyo dhac ay geysaan mararka qaarkood. xitaa Christina waalidkeed ayaa wici jiray booliska sababtoo ah waxay u baqayeen ammaanka gabadhooda maadaama ninka nin xun uu yahay ay la socoto xiriirka kala dhexeeyo. 2004 Christina waa la xiray kadib xatooyo ay ka geysatay goob dukaana. intaa ay xirnayd waxay dhanka kale ku jirtay xarun dhaqan celin ah oo dadka drug isticmaala loo geeyo in rehabilitation loogu sameeyo ama dhaqan celin. wayna jartay xiriirkii Mr. Richard Snyder. isla xaruntii dhaqan celinta ayay ku kulmeen Justin oo isagu ahaa dadka xarunta isaguna loo keenay isticmaalka drugga dartiisa. xiriirkoodii waa uu sii dheeraaday, wuxuuna gaaray heer ay guur ku heshiiyaan. sanad kadibna way isguursadeen. maxaa dhacay markaa kadib? waad xusuusataan inaan idiin soo sheegnay Christina inay dhaxal u lahayd lacag fara badan oo aabaheed qolada inshuransiga ay siiyeen, taasi oo la sugayay ilaa 18 sano ay ka gaarto. markii ay ka soo baxday xaruntii dhaqan celinta, durbadiiba waxay bilowday in lacag dhan $360,000 oo dollarka Mareykanka ay ku iibsadaan guri ay ku noolaadaan iyada iyo waliba saaxiibkeed Justin oo xilliga ay isguursadeen July 8 2006 kadib 3 sano oo ay ka soo wareegatay dilkii argagaxa ahaa. laamaha amniga waxay heleen wicitaan nin isna ku jiray xaruntii dhaqan celinta ee Christina ay ku jirtay, kaasi oo u sheegay booliska inuu maqlay xanta ciddii dishay 3 sano ka hor July 18 2013 4 ruux xilligaa la dilay. xitaa waxa uu sheegay inuu caddeyn u hayo warka, waxaana uu sheegay in Christina ay u sheegtay in dhibane Rachel oo ahayd saaxiibadeed kana mid ahaydna 4 ruux la dilay ay 1 daqiiqo u jirtay inay wacdo
nambarka emergency serviceka ee 911 markii ay dilaysay weliba. xogtan weli lama helin hadda ka hor. arrintani waxay booliska u eefisay arrimo badan iyagoo tixraac ku sameeyey xiriirka kala dhexeeyey Christina gabadhii ay markaa dishay, taasoo kaliya ku koobneyd wanaag iyo isjecel dhexdooda ka jiray. baaritaan dheer oo ay boolisku sii sameeyeen ayaa waxaa sidoo kale ay xogtaasi sii raadiyeen sida ay kalsoonida ugu qabi karaan in cidda xogtaa siisay boolisku lagu kalsoonaan karo. balse tan lama filaanka waxa weeyaan in booliska cidda soo wacday uu yahay Justin, ninka cusub ee Christina ay isguursadeen, kaasoo isaga booliska u sheegay in xaaskiisu ay ka dambeysay falka 18 July 2003 lagu dilay 4 ruux oo 2 ka mid ah weliba saaxiibadeeda qaaliga ay ahaayeen. Christina boqoradii quruxda ee timaha aan lahayn oo markii dambena isu bedeshay dilaaga. durbadiiba boolisku waxay markaa sii raadiyeen xogtii iyadoo xitaa la isbarbar dhigay sawirkii uu markaa sawiray ninkii goobjoogaha ahaa ee dariska la ahaa 4 ruux ee la dilay iyo wejiga Christina, taasoo noqotay kuwo la isku soo qaban karo. durbadiiba boolisku waxay markaasi baaritaan ku sameeyeen Christina iyagoo ugu yeeray iyada iyo waliba saygeeda. Justin waa ninka booliska arrintaas soo wargeliyey inay yimaadaan xarunta booliska. su'aalo la weydiiyey dib baa loo fasaxay, balse markii la fasaxay Christina iyo Justin labaduba waa ay ka guureen gurigoodii cusbaa, waxaana ay kireysteen guest house guryaha la yiraahdo oo markaa aagoodii ama xaafadii ay deganaayeen way ka tageen. waxaana ay bilaabeen inay markaasi iyaga dhexdooda ay su'aalo iska weydiiyaan falka, taasoo u muuqatay in Justin weli markaa uu isagu walwal ka qabo noloshiisa maadaama qoftan xaaskiisa ay horay 4 ruux u soo dishay. waxaana ay keentay taasi in booliskii mar kale ay howlgal sameeyaan isla markiina lagu soo qabtay Christina oo dib mar kale saldhigga booliska loo keenay. su'aalana la weydiiyey iyadoo wixii oo dhan ka hadashay isla markaana cadaysay in saaxiibkeedii hore ninkii la dhihi jiray Chris Snyder oo isagu ahaa ninka ka dambeeyey dilka 4 ruux. iyadoo isku dayeysay inay booliska qalado ayaa ay tiri aniga xitaa uu igu qasbay inaan wax ka dilo. weliba bistooladii intuu gacanteeda saaray ayuu isaga gacanteedii iyo farteedii isu qabtay, taasna xabadda sidaa aan ku riday. markii ay boolisku weydiiyeen iyadu su'aal haa iyo maya toona ahayd oo ahaa in iyadu ay wax dishay iyo inaanay dilin, ayay tiri haa waan dilay. weliba malaayiin xabadaha ayaa iga baxay iyadoo kula jeeda in xabado badan ay riday. waxaana sidoo kale ay sheegtay in Rachel saaxiibteedii qaaliga ahayd iyadu gacanteeda ku dishay, weliba iyadoo aan rabin inay disho inuu markaa Chris Snyder saaxiibkeedii hore uu ku qasbay inay disho, sidaana ay ku dhamaystirtay goobtuna ay sidaa uga baxsadeen. booliska ayaa intaa kadib bilaabay inay iyaguna raadiyaan Christina saaxiibkeedii hore Rachel Snyder, balse familka Rachel ayaa ka warhelay booliska inuu wiilkooda raadinayo. waxayna u sheegeen Rachel isagoo bilaabay inuu drag xad dhaafa isticmaalo, halkaasoo markii dambena la sheegay inuu draagiska u geeriyooday intaanay booliska soo gaarin. Christina ayaa warbixinta aad u qabsatay dhacdadeedii iyo weliba iyadoo lama filaan ku noqotay dadkii deegaanka in Christina oo saaxiibo rasmi ah la ahayd dhibanayaasha la dilay ay iyadu ahayd qoftii ka dambeysay dilkooda oo muddo 3 sanadooda aan la raadinayay cidda dishay, balse markii dambe ay soo baxday. waxaana Christina lagu xukumay ciqaabtii ay mudneed, taasoo iyana sidoo kale ay jirtay in boolisku ardaydii iskuulaadka ay wada dhiganayeen mid su'aalo ay u weydiiyeen, mid walbaana ay soo ogaadeen backgroundkiisa dambe inaanu jirin cid lug ku leh marka laga reebo Christina iyo Chris Snyder oo midna la dilay midna lagu xukumay 40 sanadood. hagaag warbixintii halka ayaanu ku soo koobaynaa. haddii aad ka heshay fadlan nagu soo biir si aanu idinkugu soo gudbino warbixinada daahsoon ee kiisaska noocan oo kala
oo had iyo jeer dunidan aan ku noolnahay ka dhaca. waad ku mahadsantihiin la socodka. sida ay nabadgelyo.